واسد الله شيء مقدسوا مقال ملحدين وهو يدي أمة الصومالية دقنيت وماشي عدو البا كان دقنين وشو هالتاجي جرو مركز دني كقش وإيمان جروي هذا نواسيدي أو ضوء عداس ميسن بدلين دتك دقن أو بدن si hadda loo kala badan yahay garan maaye laakiin haddana muddadii la joogay oo hadda dawladdu ay ka dhisnayd waa muuqataa in deganaanshuhu iyo sabirka aad sheegteen waa ficil xaqiiqi oo jira laakiin waa sabarna kaliya lagama rabo waxaan laga rabaa hoggaanka dalka tiina inay wax ka qumisaan oo hagaajisaan xamar sida uu ekaanayso maanta kaliya farmaajo lagu haystay hadda waa joogi jirteen ruuxadiin waxa la rabaa xamar ina hoggaankeeda la qabto wixii ka khaldan laga saxo oo ay noqoto meeshii wax laga bilaabay asalka ahayd waxna waa sharciga iyo maqaamkeeda waxna waa muuqaalkeeda iyo nolosheeda hadda xataa marka laga tago maqaamkeeda iyo soo noqonaysa ay la dooranaysa marka laga tago xamar sida hadda ay u eg tahay si lagu raalahan kara ma amaan ma jiro nadaafad ma jirto meel walba waa la dhistay hadda caasimad Soomaaliya ku noqoto naftirkeeda in laga shaqeeyo u baahan tahay aniga magaalada waa jeclahay waa ku dhashay abil waxa uu dirayaa dadka hadda jooga hadda ay ma degani magaalada xamar waa la xumeeyaan maqli jiray xamar xumeynta laga dhaaf oo siday hadda ku sugan tahay wax laga bedelo annagoo dhan diyaar aanu nahay maxaa yeelay qalbigeena iyo qulubteena la jirta xamar wanaageedaan rabnaa حمر وحماته ودولة الصومالية وحن ومرايدي دلك وعاصمتي دلك مقام كستا شرف كستا وقوم مضنتهي إن الصومالي أنت هذا كرسي سي مناسب وته وح أنت دتك الصومالي لا يكر الله يه والدولة نمرة مركلة لسه وحصل دقوة إسقالانش السياسة ده تلابد وحكت وحوي الشرعي الوقت بيو وحن شرعي لهين هادو أمورن كيدو بدنايا waxaan qabaa hadda anigu ma qabo waxyaabo sharci ah iyo waxa sinaan ka hadalno hadda xaalad adag baa mareynaaye horta awoodeena aan soo geeyno dalka sida doorasho u galeeyay taas asal dhig ah laakiin waxaan ka rabnaa hadhow yaan la cabaadin dawladda soo socota ay timaado waxa la rabaa wixii ay qaban lahayd hadda la isla garto oo aysan isla dhaafin oo sanadka ugu dambeeya aan la cabaadin waxaan u baahanahay mar walba sanadka ugu dambeeya la yiraahdaa seesu dooranayna waxaan hadalkay ku soo gaabinayaa gogasha noocaana in aad loo badiyo arrimaha siyaasadda waayadan dambe Soomaalidu waxa leedahay habeenkii bay ka shaqeysaa hadda ka bacdu waxaan rabnaa siyaasadda maalintii laga shaqeeyo xalaal maxaa loo oran jiray daraar baa la qashaa Soomaa bahashan hadda mugdiga ah horta naga dhaaf haddii mugdi lagu jiro dadka shacabka fiktam noqonaya in yaro habeenkii wax qaybsata waa ogahay hadii habeenkii la iska dhaafo dad badan shaqo weyn doona dhagdheer iyo dhagay shaqo ku laakiin kuwa kale badan shaqo ilaahay dib male marka shaqada baalintii hal laga dhigo dadku saraaxa u wada hadlo waa la kala garbaxaya hadii ilaahay ka dhigo marka taasna waa كفتن كمان تو فريا معايا لجوجل أنا كفتن لاين ولا اللي ما كانوا مقاتلين مركي إلا كفتوا لوبة هاي فريمين سفي عم بنوقلين لكن فعل كذا ناس القبر نار بنوام هالسنتين